السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن ولا ليال كسو دواذا قصة كلي قصة وحا اي دعدي واجي واميرك اها صحابي بيناء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة وحا اي دعدي سيدة مالين مالمها كمد ايام مقالة وحا ارد كسو قلي نين عرابي اها oo lagu eriyeenay seef oo la doonayay in laga taqaluso oo nafta la dhaafiya ninka waxa eriyeenayay laba nin oo uu soo dilay aabahood ninkiisu u soo ordaayay waxa uu u yimid Umar bin Khattab radiyallahu anhu Umar ayaa ka celiyay labadii nin ee doonayay ninka in ay dilaan waxaana uu weydiiyay maxaad ku dilaysaan ninka oo aad ka doonaysaan waxa ay ku yiraahdeen yaa amiiral mu'miniin ninka kani waxa uu dilay aabaheen عمر ayaa weydiiyay ninkii Acraabiga ahaa waxa uu ku yiri oo marunba aabahood ma adiga dilay ninkii Acraabiga waxa uu ku yiri haya amiirul mu'miniin aabahood waxa uu sababsaday gacanteedii oo aniga ayaa dilay Umar bin Khattab waxa uu ku yiri oo maxaad ku dishay aabahood ninkii Acraabiga ayaa ku yiri yaa amiirul mu'miniin waxa aan lahaa beer ninka aabahood ahaana waxa uu lahaa xoolo maalin walba xoolihii waxa uu soo gelin jiray beerteedii in badan ayaan ku iri xoolahaaga iga cesho waa uu iga celin waayay maalmaha kamid waxa aan arkay asagoo si ula kaca xoolihii uu soo gelinaya beerta waxa aan ku iri iga cesho xoolahaagii waa uu iga celin waayay kadib waxa aan ku soo tuuray dhagaxii ayaa ku dhacay waana uu geeriyooday sida ayuu ku dhintay aabahood Umar bin Khattab waxa uu ku yiri hadaba ninkii adiga dilay waa in lagu qisaasaa oo laga oofiyaa xadka waana lagu dilayaa ay ogow ninkii Acraabiga waxa uu ku yiri yaa amiirul mu'miniin waxa aan ka imid qoys faqiir aabahay waxa uu ka tagay dahab uu meel ku aasay dahabkaasina aniga oo kaliya ayaa meel ku og waxa aan doonayaa dahabkaas in aan u soo bixiyo reerka aan u soo dardaarmo wixii xoolo ahna aan meel ku soo ogaado kadib aan soo noqdo xadkiina la iga oofiyo Umar bin Khattab waxa uu ku yiri hadaba yaad ku damiinanaya ninkii waxa uu ku yiri yaa amiirul mu'miniin law maalin oo kaliya hal ifasaxo waa aan soo noqonayaa Umar bin Khattab waxa uu ku yiri waa in aad heshaa damiin waxa uu eegay saxaabadii waxa uu na ka waayay nin damiinta oo garta ninka waxa uu yahay oo damiinka noqda waxa uu si fiican u eegay saxaabadii waxa uu arkay saxaabi wajigiis dhalaalaya oo ay ka muuqato naxariis waxana uu ku yiri war ninka kanow adiga idamiino naxariis ayaa ka muuqatay saxaabigii markii la eegay waxa uu noqday Abu Dharr al-Ghafari oo rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu ku tilmaamay ninka ummadda nabi Muhammad kaleey salaatu wasalaam ugu iimaanka fiican wa Abu Dharr waxa uu ahaa ninkii saxaabada ugu suhdiga badnaa Abu Dharr al-Ghafari waxa uu ku yiri hadaba aniga ayaa damiin ka ee orod iska bax ee xoolahaagi meel ku soo ogow kadibna nagu soo noqo si lagaaga oofiyo xadkii Umar bin Khattab ninkii Acraabiga waxa uu ku yiri orod waxa doonti soo sameeyso labada maalin kale ayaan kugu daray maalinka saddexaad noo soo noqo si lagaaga oofiyo xadkii ninkii Acraabiga ahaa waa uu baxay waxa uu aaday tuuladii waxa uu soo kala meeleeyay xoolihii uu ka geeriyooday aabihiis maalinkii saddexaad markii la gaaray in laga oofiyo xadkii saxaabadii ay isku yimaadeen Umar bin Khattabna uu yimid waxa la waayay ninkii waxaana la gaaray gabaldhici Abu Dharr al-Ghafari oo gariiraya oo yaaban oo la laayahay ninkii uu asaga damiintay ayaa waxa uu yiri Umar bin Khattab ninkii waa la laayahay ee maxaynu sameeynaa Abu Dharr oo indhaha taagaya waxyar kadib waxa soo muuqday nin soo wata faras ninkii markii uu soo dhawaaday waxa uu noqday ninkii Acraabiga ahaa ee la doonayay in laga oofiyo xadka Abu Dharr al-Ghafari ayaa ku farxay ninkii markii uu yimid Umar bin Khattab waa uu la yaabay arinku uu sameeyay waxaana uu ku yiri war ninkanow waad naga tagtay cid ku garanaysana ma aanay jirin ee waad uuman kartay ee maxaa ku soo celiyay ninkii Acraabiga ahaa waxa uu ku yiri yaa amiirul mu'miniin waxaan ka cabsaday in lagu sheekaysto oo lagu caayo ummadda nabi Muhammad kuma jiro nin aamin ee mas'uul qaada ee damiin laga noqon karo kuma jiro in la dhaho ayaan ka cabsaday sidaas ayaa ugu soo noqday oo aan u doorbiday
in nafta la idhaafiyo intii lacaan lahaa muslimiinta. Abu Dharr al-Ghafaari ayuu ku jeestay Umar bin Khattab waxa uu weydiiyey war ninkan ma aadan garanaynin ee sideed ku damiinatay. Abu Dharr waxa uu ku yiri yaa amiirul mu'miniin anna waxaan ka baqay in lagu sheekaysto oo lagu caayo ummadda Nabi Maxamed waxa laga waayay nin naxariista oo nin walaalkii ah damiin ka noqda. Labadii nin ee aabahood la dilay markii ay maqleen Abu Dharr al-Ghafaari waxa uu sameeyay ninka Carabiga waxa uu sameeyay ayagana waxa ay ku yiraahdeen yaa amiirul mu'miniin anagana waan cafinay ninka Carabiga ah ee dilay aabaheen. Umar bin Khattab ayaa waxa uu ku yiri oo maxaad ku cafiseen waa ninkii aad erinayseen ee aad doonayseen in aad disheen waana ninkii aabihiin dilay. Labadii saxaabi waxa ay ku yiraahdeen yaa amiirul mu'miniin anagana waxaan ka cabsanay in lagu caayo oo lagu sheekaysto muslimiinta waxa laga waayay dad naxariista oo wax cafiya sidaa darteed ayaan u cafinay. Ogow Umar bin Khattab ayaa ku farxay arankii